Kusoo dhawaada barnaamijkeennii ciyaaraha aynu kaga hadli doono ciyaarihii horyaalada Yurub shalay laga ciyaaray iyo kuwa maanta oo la ciyaarayo Axada, taasaynu ka eegi doonaa natiijooyinkii iyo ciyaaraha maanta dhacaya. Kooxda Manchester City ayaa guul raaxo leh shalay ka gaadhay ciyaartii la ciyaaraysay Crystal Palace ee gurigeeda marti ugu ahayd, taas ay 2-0 kaga badisay. Labada gool ay u saxiixeen Aguero iyo Fernando Torres. Kooxda Man City ayaa maanta eegaysa natiijada ciyaarta dhex mari doonta Manchester United iyo Liverpool. Ciyaartaasi ay ku dacaysanaysa in Manchester United laga badiyo si ay maantaba u xaqiijisaan hanashada horyaalka Premier League. Ciyaartii dhex martay Chelsea iyo Fulham ee ku dhex martay geegaga Stamford Bridge ee garoonka Chelsea, taasoo ku dhamaatay 2-0 ay ugu awood sheegatay Chelsea. Kooxda Fulham, macalinka Chelsea ee Thomas Tuchel tan iyo markuu bilaabay Premier League oo laga yaabay wacdaraha uu ku hogaamiyay kooxda Chelsea, taasoo 15 kulan ugu horeeyay Premier League 11 ciyaarood oo shabaqa ilaashaday, taasoona hore u sameyn macalin Premier League hore ilaaliyay ciyaarihiisii ugu horeeyay. Kooxda Atletico Madrid oo shalay ugu ahayd marti kooxda Elche, taasoo 1-0 kaga badisay. Atlantico oo sii dhawaanaysa ku guuleysiga horyaalka La Liga kadib ciyaartii shalay ay kaga badisay 1-0 Elche. Ciyaartii dhex martay Real Madrid iyo Osasuna waxay ku dhamaatay 2-0 guusha ku raaxday Real Madrid. Labada gool waxaa kala saxay Militao iyo Casemiro. Real Madrid oo ku soo laabatay udada guulaha, taas oo ku daba jirta inay soo qabato Atletico Madrid oo hogaanka La Liga haysa. La Liga oo sanadka xamaasad aad iyo aad u dhaxayso, taasoo aan hogaanka kooxda kaalinta koobaad iyo kaalinta afraad ku jirta u dhaxeeyaan 3 dhibcood oo kaliya. Ciyaartii dhex martay kooxda Inter Milan iyo Crotone, taasoo ku dhamaatay 2-0. Labada gool ay kala saxiixeen ciyaartoyda Eriksen iyo Achraf Hakimi. Kooxda Inter Milan oo soo gabagabaysay kooxda Juventus ee horyaalka Serie A ee xurtada ku heshay, taasoo Juve qaaday 9 sano xidhiidh sanadkan. Kooxda Conte ayaa hamigii Juve lahayd 10 sano xidhiidh inay qaaday soo gabagabaysay, taasoo maalinta kasii dambeysay oo sii dhawaanaysa inay ku guuleysiga horyaalka Serie A. Ciyaarta xiisaha iyo xamaasadda leh u dhaxaysa kooxaha Manchester United iyo Liverpool, kuwan oo ah labada kooxood ee ugu cadaawada badan kooxaha Ingiriiska. Haddaynu eegno scoreska kooxda Manchester United 15 game ee ugu dambeeyay ay kula ciyaartay geegadeeda Old Trafford, kooxda Liverpool 10 jeer Manchester baa badisay, 4 barbara hal kooxda Liverpool ayaa ka badisay. Labadan kooxood ayaa inta badan ciyaarahooda waxa la dhaho kooxaha barbaraha ku dhamaada. Ciyaartoyga Manchester United oo ciyaara daafaca Harry Maguire ayaa ciyaartoygii labaad ee Manchester United ee 72 ciyaarood oo xidhiidha 90 daqiiqo dhameysta tan iyo Blaise ee ahayd 1993. Sidoo kale ciyaartoyga Liverpool ee Salah ayaa noqon doona ciyaartoygii labaad ee Liverpool ee 2 ciyaarood isku xiga garoonka Old Trafford gool ku dhaliya, tan iyo Harry Chamber oo sameeyay 100 sano ka hor. Ciyaaraha kale maanta soo dhacay horyaalka Premier League waxaa ka mid ah kooxda Arsenal oo u tagi doonta kooxda Newcastle. Ciyaartaas soo dhici doonta 4 galabnimo. Kooxda Barcelona ayaa caawa waxay la ciyaari doontaa kooxda Valencia, taas oo ay ugu tagi doonto geegada kooxda Valencia. Ciyaartaas soo dhici doonta 10 habeenimo. Kooxda Barcelona oo doonaysa inay ku soo noqoto wadada guulaha si ay ula tanto kooxda Atletico Madrid iyo Real Madrid. Ciyaaraha kale caawa la ciyaaran waxaa ka mid ah Indonesia oo martigeli doonta kooxda Juve saacadu markay 7 buura. Kooxda Juve ayaa sanadkan waxay u dagaalamaysaa si ay uga mid noqon lahayd kooxaha
sana ka daba ciyaari doona Champions League afarta kooxood ee ugu sarreeya horyaalka Serie A-da.